bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbo joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii base 21 gaming maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doono maalinta khamiista ah icoonikada la keeni doono ayaan halkan ku falqay doonaa sidaan wada ogsoonahay maalinta khamiista ah waxaa la wada sugayaa icooniga cusub maadaama isbuucan la keenay icooniga ay ku caajiseen dadka ciyaara base 21 gaming dhegeystayaal waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa icoonigada ay suurtagal tahay in la keeno maalinta khamiista ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha 8aad 2021 dhegeystayaal maalinta khamiista waxaa aad loo hadal hayaa in la keeni doono icoonigada Bayern Munich maadaama maalmahan amba usbuucadii lasoo dhaafay aan la keenin icoonigada Bayern Munich waxaa aad macquul u ah in la keeno icoonigada Bayern Munich sida Rummenigge, Beckenbauer iyo ciyaartoy hore oo soo martay naadiga Bayern Munich sidoo kale waxaa macquul ah in la keeno icoonigada Juventus oo aad loo wada sugayo waxaana kamid ah ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo ku dhamaanayo 100 waxaana aad dadku u daneynayaan in ay helaan ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo quality badan kula base-ka marka uu yahay iconic Juventus ah sidoo kale waxaa soo lameeyo Nedved amba Del Piero saddexdaas ayay suurtagal tahay in laga keeno naadiga Juventus sidoo kale waxaa macquul ah naadiyaasha Ingiriiska in laga keeno icoonigada sida Chelsea, Liverpool iyo Arsenal maalinta khamiista saddexdaas naadi ayaa iyadna suurtagal ah mid kamid ah in laga keeno icoonigo waxaana aad loo hadal hayaa in ay Liverpool khamiistan ay suurtagal noqoto in icoonigadooda la keeno sida Fernando Torres, Steven Gerrard oo 100 ku dhamaanayo iyo Michael Owen oo 99 ku dhamaanayo waxaa kaloo macquul ah in saddexdaas kuwa aan ahaynba la keeno marka dhegeystayaal waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa had iyo jeer waxyaabo xiiso badan sidaa darteed kanaalka subscribe saara nala socda waxyaabaha xiisaha badan leh aan soo geli doono maalmaha soo socdo waa aniga maxamed cabdullaahi oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu